haddii aad arrinkaa faraha ka qaadi weydo golaha deegaanka annaguna waanu kaa tashan doonaa adeegaaga servicekaaga aad bixiso in alliya inta deegaanada uu ka soo jeedo xildhibaan mideeye way kaa tashan doonaan anuu aanay waaban yaabayba ma carabkan ka dhowraya magacee biyaha hoostooda maraya war ma qalintida halkaa waad ka sarraysaa Sacad Muuse waad ugu sarraysay habara walla waad ugu sarraysay nin ganacsiga waa tahay hawso ardaaga ku soo noqon baan leeyahay mid waan uga digaynaa maxamed Saciido waxaan leenahay maxamed Saciido maalka ilaahay ku siiyay yaanu noqonin mid Sacad Muuse kala fogeeya waa qodob jiraa boqoradaan nahay godab baan ku galno adeer beeruba noo maxaa sidoo xarigaagu noo dhex maray anoo kala heelina tolnimada ilaali bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliima kaseera waxaan maanta halkan kaga hadlaynaa arrin nagu soo noqnoqday oo golaha deegaanka degmada Hargeysa tartanka ka socda golaha deegaanka kaasoo u yaala golaha deegaanka inay 17 xildhibaan ku tartamaan haddana rag badan oo waaweyn ayaa soo dhaxgalay waxa soo dhaxgalay oo sida xogtaan ku hayno la kulmay gudida hoodaale maxamed Saciid diidayna inuu jiro abkor la kulmo gudidiisa waxaanu leenahay maxamed oo nin tola tahay ganacsada tahay waxa tahay nin Sacad Muuse waxaad ka soo jeedaa meel sharaf leh annaka iyo cid kalena waan ku simanahay jiraa boqoradaan nahay godab baan ku galno adeer beeruba noo maxaa sidoo xarigaagu noo dhex maray anoo kala heelina tolnimada ilaali oo ganacsigaaga iyo siyaasadda kala reeb intaasaan kugula talinaya waxaan naqayaa horta marti sharaftan ka soo qayb gashay shirkan jaraa'id ee aanu kaga hadlayno haddii alla ku rooyahay tartanka ka dhex socda golaha deegaanka caasimadda Hargeysa kulley waxaa tiraa Soomaalidu abaskuul meel lama wada joogto warna iskuma seegana haddii aynu hay Sacad Muuse maanta wax allaaliyo wax noo kala qarsoon ku taajira ku xildhibaana ku wasiira ku beertiisa qota ku ariga jirta oo arigiisa oo miyiga jooga wax noo kala qarsoon ma jiro waxaan maanta halkan doonaa inaanu aan wax ka nidhaahno nimanka waaweyn ilaahay baa weyn ee tijaarta ah ee Sacad Muuse magaca Sacad Muuse ku eeg ama magaca Isaaq ama magaca deereer Sheekh Saxaaq ee maanta ku soo hoos noqday dib ugu soo noqday ee yidhi xiliyaha baan iska jar doonaa hadduu hebel sidaa noqdo aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay annagoo qarinaynin waxaan leenahay nimanka tijaarta ah hadday tahay maxamed Saciid hadday tahay nimanka kale ee iyaguna ku hoos jira waxaan leenahay war fadhiga looga noqdo Sacad Muuse marka uu faanayo ama Isaaq intiisa kale uu faanayo maxamed Saciid wuxuu ku jiraa ragga uu ku faano ayuu ka mid yahay maalka ilaahay baa siiyey magacana ilaahay baa siiyey oo Sacad Muuse ka dhaliyay laakiin maanta mid waan uga digaynaa maxamed Saciid waxaan leenahay maxamed Saciid maalka ilaahay ku siiyey yaanu noqonin mid Sacad Muuse kala fogeeya waa qodob mid Sacad Muuse kala fogeeya yaanu noqon karaamo ku yeelan maysid karaamo kuma yeelanaysid Sacad Muuse wuu shaqaanaayo hadday faratayna halku yahay waa loo yahay haddii ay maal tahayna kaliya ma haysid kuwii kaaga soo horeeyay baa jira kuwii kaaga soo horeeyay ayaa Jibriila kuwa maanta kula midka ayaa Jibriila Sacad Muuse kuwii Soomaaliland dhisay baa kamid ah oo maanta la jooga maxamed Saciid xiliyahan iska jar doona hadduu Khadar Maayir noqon waayo war waxba iska jirin Khadar Maayir ama ha noqdo wani Sacad Muuse ama inaka kale Isaaq cida gala Maayir ha noqdo inagu shacab baynu nahay waxaad tihiin shacabkaad ka mid tihiin dadka inaynu kala fogeyno maaha kii Maayir noqdaanaba waa kii kale waxaan leenahay war maanta waxaynu u baahnayn in dadka la isku soo ururiyo oo labada kala fog la isku keeno maaha in aynu dadka kala fogeyno maalkaaguna
inuu noqdo mid dadka kala fogeeya maxamedow waa lagu ogyahay halkaad kaga jirto waxaa jira guddida jibriil abukar maxamedow mar iyo laba iyo saddexba waxay doontay inay kula kulanto waa diiddo waad ignore garaysay lagama filaynin hoodaale annagaa ka hadalo hore oga hadalnay hoodaale waxaanu idhi nima matasho maantana waan ku celinaa nima matasho hoodaale wax jira maaha wixii loo doortay ma yeelin wixii loo doortay dhaqan buu ahaa may ahayn siyaasad shirkii sacad muuse halkii lagu qabtay agabal ba ahayd wixii lagu soo doortay waan ognahay siyaasadi kuma jirina dhaqan ba ahayd iyo sacad muuse horumarkiisa xagga dhaqanka wax kale may ahayn maanta siyaasad bay soo dhex gashay siyaasaddii annagaa durnay oo hoodaale maanta wax la yidhaahdaa oo jira haba yaraatee ma jirto maantaanu ku celinayo haddaanu nahay jibriil nama matasho guddida hoodaale nama matasho maxamed oo saciidow adiguna waxaanu ku leenahay markii u horreysay eenu ka hadallo weeye arrimahaasi eenu adiga magacaaga soo qaadno waxaanu ku leenahay dib oga noqo waxbana xiniyaanaha iska tarin dib oga noqo waynu iswada ognahay waxaynoo kala qarsooni ma jiro ganacsadaa tahay bari ilaa galbeed ganacsigaaguu maraa xaligaagaa mara ganacsigaaga kala socda inaad meel laba collaysato maaha adiga meel laba inaad collaysato maaha ka isaaq iyo ka sambaroon iyo ka daarood somalilan saddexdaasay ka kooban tahay isaaq ciisa ayaa afreeya intaba ganacsigaaguu maraa ninaba ha collaysan waxaanu ku leenahay maxamedow sacad muuse mid ha ku ahaado midna waanu kuu sheegaynaa haddii inamadu kooramka ay kala haystaan dee kana adeer baw tahay kana ilmaadeer baatiin kana ilmaadeer baatiin war yaanay ku kala soconaanin yaanay ku kala tilmaanaanin mideeya wuu soo baxayaa kooramkuu haystaa in adeerkaana weeye khadarna waa in adeerka hadduu maayir ku soo baxo midna ma nabcin midna ma eriyeyno laakiin waxa aad waddo eed hoos u waddo wax inoo kala qarsooni ma jiraane waanu ku ognahay dib uga noqo wixii deelqaafa haddii hadalkaygaasi cid ay dhibsato raalliha ka ahaato wax dhiba laga arko inta ila joogta iyo inta maqli doontaba wixii deelqaafa haddii ama la dhibsado laga arko raalliha laga ahaado waan ka raalli gelinayaa sida odayadu ka dhawaajeen ninkaa la sheegayee caruurta ku kala dhex jira ee markii horena lacagtiisu ay muuse erinaysaa la lahaa iminkana labadaynana yaryar lacagtiisii baa erinaysa la leeyahay horta waa dhib weyn ceeb weyn waxaan u soo joogay 1991kii brandera dee nin aanay habarawal ahaa nin sacad muuse ahaa nin jibraab kor ahaa wuxuu dhisayey wuxuu samaystay tanuu samaystay adduun hadday ahayd iyo hadday aanay ciidan ahayd iyo haddii lacag la damiinto ahayd ibraahim cabdi kaahin bay samaystay markaa aanay ayay soo bixin aanay halkii ibraahim ninka habarawale aanay lacag imiga haystaa ee doonaya inuu ku shaqeeyo sidii ibraahim ha u shaqeeyo baashii magaca lahayd ee east africa iyo adduunka iyo adduunyada laga arkayay sidaasoo kale ha u shaqeyso inama yararoo xildhibaanaayo ina yaroo laba yararoo meel isku haystayo waxa ayay ku noqon labadaynaba waa ilmaadeeradii sida la sheegayo inanka ciidagalano waa ilmaadeerkii ka aanay sacad muusena waa ilmaadeerkii wax kala fog malin magaaladana wada leenahay cid magaalada laga leeyahay oo caasimad bay noqoto maanta cid laga leeyahay ma jirto loogu anjabi karo annaga xukuna leeyahay waa suuragal noqon mayso waxyaalaha qaarkood waxaanu leenahay ninkaa la sheegayay biyaha hoostooda maraya anuu aanay dee waaban yaabayba ma carabkan ka dhowraya magacee biyaha hoostooda maraya waar ma qalintida halkaa waad ka sarraysaa sacad musena waad uga sarraysay habara walla waad uga sarraysay nin ganacsigana waa tahay hawsoo ardaaga ha ku soo noqon baan leetaa oo waliba aniga dee u abtigayo magaca weyn baaba igu yaallo anuu maanta halkaasi in uu marayaa la yidhaaba maan eegin marka waxaan leeyahay war arrintaa dib looga noqdo guddida hoolaalana halkii ay martay bay marto waxa weeye dee cidda waxa weeye matalaada hadday marka hore wax ka muuqdaan ay naaqsunma ka muuqato horta galbeedkaaba uma bixin oo waxba kama qaban jir marka ugu horeysa xaggan saruun bay bixi jirtaa la yidhi oo waxay u tartay oo galbeed u qabatay ma jirto haba yaraatee magacaba hayado magacu waa dibi waa la wada lahaa magaciina way dishay oo markay dhinac ka fuushay bay dishay
markaa guddidii hoodaale agabar baynu geyn doonaa dib baynu ugu celin doonaa oo guddi aanay midaysanoo saxa ayaynu soo saari doonaa imigase tan joogtaa tii la doortay ma odagayna qaalib baa ka jooga oo qura waxaan kale maxlal ba ahaanoo meel laga keenay ma garanayno markaa waxayna mateli karaba maaha markaa waxaanu leenahay haddii alla yidhaahdo ninkaa heerka sare ee magaca le ee maanigan abtiga magacaaga maanta halkana lagu hadlayo anigu waan ka xumaa ma ogoli in la dakhro adiguna uma qalantid in lagu dakhro inaad cid kala jeclaysato cid aanay juraab kule la kulmi weydo reer hebel la kulanto kuma wanaagsana marka hawshaasi madaxweyne maxamedow ayaanad ku shaabadoon horta qaybshe golaha deegaanku man la iskaga iibaan qabaayeen midayana intiisunbu qaadayaa maxamed aw siciid waxaan leenahay xadhiggaa wanuuna dhex maraa iibaankaagu yaan laakiin caasimadda ku koobnaan in lacagtaadu dalka iyo dadka hoos u eg midayana qaybshe ilaahay baa soo saaraya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa raggii iga horreeyeyba sheegay nin ku karaamo seega dee halkan waad nagala weyneyd maxamedow markaa golaha deegaanka dhexdiisa in karaamadu kaaga lunto oo shaarku kaaga dhaco kuuma habboono adaanay kuu fiicnayn annana aanaan kuu quudhayn in halkaa karaamadu kaaga dhacdo marka wixii dee karaamo beel kugu ridaya inaad iska ilaalisaa kuu habboon asliyan annana aanu kula jecelnay waayo dee labada ninba waa iskugu kaa mid golaha deegaanka dhexdiisa inaad ku karaamo seegta maaha sharaftaadu intaa inay ka weyntaanu u qabnaa adiguna sidaa inaad aqoonsato oo aad kor uga daaqdo ayaa dee habboon sidaa odayaasha hore sheegeen baan la qabaa horta ninkii ilaahay qoray ayuunbaa tegaya halkaa hawshuna waxa u taallaa shacabkana uma taallo cid kalena uma taalle 17 xubnood ee golaha deegaanka u taallaa 17 xubnood cidday doortaan unbaa meeyar iyo meeyar ku-xigeen noqonaya laakiin in gujada laga daayo ayaanu soo jeedinaynaa ninkaa magaciisa halkaa laga dhawaajiyey ninkaa waxaan leeyahay labadaynanba way kuu siman yihiin anagu sacad muuse hoosba kumaanaa soo celinayne nin somaliland aanu ku arkayne somaliland se laakiin waxaan ku leeyahay waxaad waddaa nagama qarsoona wuu noo muuqdaa haddii aad arrinkaa faraha ka qaadi weydo golaha deegaanka annaguna waanu kaa tashan doonaa adeegaaga serviskaaga aad bixiso in alliya inta deegaanada uu ka soo jeedo xildhibaan mideeye way kaa tashan doonaan markaa waxaan ku leeyahay waxaa la yidhi bil 3 reerkaagana way kaa kaxaysaa reer kalena kuma gaadhsiiso waxaan ku leeyahay guddidan sacad mise daba cararayso iyo nadarkan aad ku nadarayso haddii sidaasi noqon weydo xiniyahaban iska jarayaa horta qadarka ilaahay baa kaa weyn markaa waxaan ku leeyahay adigu isku tulo ha noqonin bishaa 3 reerkaaga kaa kaxaysa reer kalena aan ku gaadhsiin ha noqonin waa naga talo maanta kuma caayino kumana ceebaynayno kumana dhaleecaynayno laakiin talaanu kuu soo jeedinaynaa waxaad diiday oo ka diiday in si gaara lagula kulmaad ka diiday markaa waxaan maanta halkan talaanu kuu marinaynaa haddaad si qaadan weydo cawaaqibkeeda adiga arki doona oo jeebkaagaad ka arki doontaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxa weeyaan horta ninkii alla u qoray unbaa imanaya meeshan iminkana waxay u muuqataa dee inay cidi kooram haysato kooramka ay haysato in lagu ictiraamo oo gacan lagu siiyo oo laysgarab taaga ayuunbaa muhiima sida u muuqata cabdi baa bedelaya khadarna mideeya bedelaya